asbaabaha ay dumarku uga cimriga dheer yihiin ragga. barnaamijkeena xogdoon waxaan maanta kugula wadaagayaa mowduuciisa badan oo ay cilmi baarayaashu daraasado kadib ku soo bandhigeen sababo ay u arkaan inay ka mid yihiin kuwa keenay in raggu ay dhimashada kaga bataan dhanka dumarka. waxaanay Haruun Maxamuud badan intaan barnaamijka gudagelin waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka noo like garaysid si uu bulsho badan u gaaro. aad baad u mahadsantahay haddii aad samaysay sidaa. khubaradu waxay sheegeen in celcelis ahaan dumarku ka cimri dheer yihiin ragga qiyaas dhan 5 sano ilaa 10 sano. haddaba sababaha ay khubaradani u arkeen inay ka mid yihiin waxa keenay kala duwanaanta dhinaca cimriga waxaa ka mid ah qodobadan hoose ee aan kula wadaagi doono. 1. dembiyada. marka taariikhda dib loo raaco bulshooyinka kala duwan ee dunida waxa aynu arkaynaa in ragga dembiyada gala ay ka tiro badan yihiin dumarka dembiyada iyo dhagaraha ka qayb gala. sidaa awgeed raggu waa ay uga khatar badan yihiin dhimashada. sidoo kale tirada ragga isdisha sabab walbaba ha ugu wacnaatee way ka tiro badan yihiin dumarka sidaa yeela. sidoo kale shilalka dhimashada keena waa ay kaga badan yihiin raggu dhanka dumarka. qodobka 2. qaab dhismeedka jireed. khubarada caafimaadku waxay aaminsan yihiin in qaab dhismeedka jireed uu saameyn weyn ku leeyahay caafimaadka qofka. tusaale ahaan dadka celcelis ahaan dhirirkoodu ka badan yahay 1.8 mitir waa 1.80 sentimitir waa ay ka nolol gaaban yihiin kuwa ka hooseeya ama dhanka dhirirka ka gaaban. qodobka 3. raggu cudurrada waa ay uga nugul yihiin dumarka. khubarada saynisku waxay aaminsan yihiin in ragga mar kasta ay nolol adag wajahaan marka loo eego dumarka laga soo bilaabo dhalashadooda. sidoo kale cudurrada ayay raggu uga nugul yihiin dumarka sida kansarka noocyadiisa kala duwan, cudurrada ku dhaca habdhiska neefsiga bini'aadamka, caabuqa beerka iyo burburka ku dhaca wadna xanuunka, xanuunadu ku dhaca xididada dhiigga iyo wixii la mida. baaritaano cilmiyadeed oo la sameeyey ayaa dah qaaday in habdhiska difaaca ee ninka uu ka nugul yahay kan gabadha. taasina ay ka mid tahay sababaha uu cudurrada uga qaaditaanka badan yahay marka loo eego gabadha, aakhirkana ay ka dhalato in dhimashada raggu ay ku bataan. qodobka 4. ismiidaaminta iyo ku dhiirashada khataraha. waxaa cilmi ahaan loo ogaaday in qaab nololeedka labku uu ka khatar badan yahay kan dumarka. marka ragga dhexdooda hoos loogu sii dhaadhacana in ragga ka shaqeeya shaqooyinka khatarta badan iyo kuwa noloshu ay ku adag tahayba ay ka cibri gaaban yihiin ragga dhigooda ah ee nolosha adduun u wanaagsan tahay. arrinta kale ee xiisaha leh ee ay saynisyahanadu ogaadeen ayaa ah in ninku uu abuur ahaanba dumarka ka jecel yahay ismiidaaminta iyo ku dhiirashada khataraha isagoo xitaa og in noloshiisu ay khatar ku geli karto. sababta ugu badan ee ragga arrintaa ku beertana waa hormoonka testosteronka ama dheecaanka ragganimada oo raggu si gaar ah u leeyihiin. qodobka 5. xiriirka bulshada. gabadhu inta badan waxay leedahay xiriiro bulsho oo xitaa marka ay daada dhallinyaranimada dhaafto sii socda, taas ay aad uga badan tahay marka loo barbardhiga ninka. sidoo kale gabadhu abuur ahaan waxay jeceshahay inay sheegto waxa laabteeda ka guuxaya iyo inay asxaabteeda kale uga sheekayso mushkiladda soo wajahday, taas oo leh 2 faa'iido oo kale ah in dhibtii nafsiga ahayd ee mushkiladani ku haysay ay ka yaraato iyo inay sii xoojido xiriirka ay la leedahay bulshadeeda. laakiin ninku waxa uu dhaqan ahaan u leeyahay inuusan si dhab ah u caddayn shucuurtiisa dhabta ah ama inuu ku dadaalo in laabtiisa uu ku haysto arrimo badan oo xanuun ku haya. arrintani waxay ku keentaa caafimaad darro jireed iyo mid nafsi, waxa ayna u nuglaysaa cudurro. sidaa awgeed waa sabab kale oo ka mid ah sababaha ay gabadhu uga cimriga dheer tahay ninka. qodobka ugu dambeeya. mihnadaha khatarta badan. raggu waxa ay dumarka kaga badan yihiin barashada iyo ku shaqaynta shaqooyinka khatarta badan, ka soo bilow kalluumaysiga, shaqooyinka duulimaadka iyo hawada sare la xiriira, askarinimada iyo wixii la mida. waad ku mahadsan tahay daawashada barnaamijka. fadlan haddii aad noo haysid aragti kale oo la xiriirta mawduucan xagga hoose nagula wadaag.